bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan isolbood nala socotaan halkani waa shacabka t v oo idiin soo gudbiya wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada xiisaha badan aan idin hayno waxa ugu door karoon Somaliland oo ictiraaf raadintii meel xun ay ka gashay kadib markii muwaadin Soomaaliyeed lagu dilay magaalada Boorama taasi oo xiisad ay ka dhalatay kadib markii askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu u dilay sabab la xiriirta xirashada calanka Soomaaliga falalka sii kordhaya ee deegaanada Somaliland sida joogtada ugu dhacaya warbixin ku saabsan ayaan idin haynaa ciidamada militariga Soomaaliya oo gudaha u galay deegaano horle oo ka tirsan Galmudug oo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab howlgalka ay fuliyeen saacadii la soo dhaafay ciidanka waa daawo doontaan golaha sheegta midowga marashaxiinta oo soo saaray war lagu qaslay kadib markii ay weerar siyaasadeed oo horle ay ku qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii barbagando ay soo dhoodhoobeen waxaan u eegi doonaa beenta cusub oo ay shaaciyeen golaha midowga marashaxiinta Puntland oo diidan in Soomaaliya loo soo saaro shidaalka dabiiciga ah waxaan eegi doonaa war ka soo baxay xafiiska barsaabka Puntland oo uu kaga digayo in hay'adaha caalamiga iyo shirkadaha kale aanay Soomaaliya la gelin wax heshiis oo ku saabsan soo saaridda shidaalka Soomaaliya warka ka soo yeeray maamulka Dani ayaa daawo doontaan iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawo doontaan warkeena meel kastoo dunida ka joogtaan kulan wacan ayaanu dilenahay halkani waa shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale daawadayaal waxaad ra'yigeena saliimka ku soo cabiri kartaan dhowrka daqiiqada ee fooda nagu soo aadan Somaliland ictiraaf raadintii meel qaldan ayay ka gashay kadib markii muwaadin Soomaaliyeed oo aad u dhalinyaro ah lagu dilay Boorama kaasi oo arday ahaa isla markaana loo dilay fal la xiriira xirashada calanka Soomaaliya awadii waa qodobka iyaga ee dooda wixii ka dheedina qaybta hoose oo commentiga noogu dhaafa qaarkiin hadaan nagu cusubtiin gacmo furan ku soo dhawaada oo subscribe hadina hado channelka iyaga muuqaalka like inoo saara imanka aynu guda galno qodobadii wararkaasi oo dhameystiran faafayna ayaa ka soo baxaya fal laga naxay oo ka dhacay magaalada Boorama ee gobolka Awdal ee maamulka Somaliland kadib markii askari ka tirsan ciidamada Somaliland ilaalana ka ah xarun jaamacadeed oo ku taala magaaladaasi Boorama uu dilay waliba si ku talagal ah wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo daadiisa lagu sheegay 20 sano jirkaasi oo lagu magacaabi jiray Allahu naxariiste Ibrahim Salaad mas'uuliyiinta maamulka jaamacadda iyo qaar kamid ah ehelada iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in ardaygaasi loo dilay afal la xiriira xirashada calanka Soomaaliya kadib markii muran soo kala dhaxgalay isaga iyo askarigii dilka u geystay Somaliland wili cadaalada ma aysan marsiinin gacan ku dhiglaha dilay wiilkaasi dhalinyarada ee Soomaaliyeed arinkan ayaa aad loogu hadalhayaa guud ahaan magaalada Boorama maadaama calanka Soomaaliya awadii loo dilay muwaadinkaasi Soomaaliyeed waxaana ay keentay dareen murugo leh oo soo galay ama ku beermay dadka ku dhaqan magaaladaasi inkastoo Somaliland ay aad ugu doodayso Soomaaliya inteeda kale waan ka go'nay balse sanadihii dambe waxa la arkayay falal aad u xun oo ka dhacayay deegaanada maamulkaas iyada oo la beegsanaya bulshada dadku waxay isweydiinayaan mar calan oo kaliya uu ku sibran yahay in loo gooyo naf muwaadin Soomaaliyeed oo aanay jirin wax uu galabsaday wiil kala dilay deegaan ahaan waxa uu ka soo jeedaa dhanka deegaanada Puntland waxaana uu wax ka baranayay jaamacadda lagu magacaabo Camuud ee ku taala magaalada Boorama maamulka Somaliland ayaa sheegaya in gacanta lagu hayo askariga cadaaladan la marsiinayo sida uu hadalkiisa u dhigay buuq xoogan ayaa laga soo warinayaa magaalada Boorama waxaana sidoo kale tani keentay in dadku ay ka dhiidhiyaan falalka gurcan ee sii kordhaya ee laga soo warinayo dhanka deegaanada maamulka Somaliland وهاجاج الضوضيال وحلا صوتان ورقة شعب كتيفي بلان كان أمرجدا لجسوا شيء سوماليلاند بلوحي درنا قيبته كومنتي كجدي ليا أرينا عكلين ويجنو إذا ماذا حوج الدلك الصوماليات إذا ماذا دولة جبلات كجلمد جويسكاشان يا جودها وجلي دور الدجان أو كتر سنتن كجبل كمدو سيدا ورقة كإيمان يا مدو جاي تلماميا جوبها يجعنت كل جان عيدا كوحة كمدا مجالات اللي جم مجعوا بعد وين يسيدو كله قيعة deegaan lagu magacaabo Sabeen Gowra iyo deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka Mudug ciidamada oo si wada jir ah howlgal ugu qaaday goobahaasi ayaa u suura gashay in deegaanadaasi ay ka saaraan ururka al-shabaab sarkaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad ayaa sheegay in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya aanay jirin iska caabin weyn oo ay kala kulmeen dhanka kooxda al-shabaab goobahaasi oo dhan ay ku sugayeen haatan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug guud ahaan Galmudug waxa ka socda howlgal ay iska kaashanayaan dawladda iyo maamulkaas si al-shabaab loo
looga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka. dhowaan ayaa sidan oo kale ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay qabteen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Galgaduud oo laga saaray ururka Al-Shabaab, waxaana taasi ay keentay in ciidamadu ay surqaansadaan goobaha kale oo Al-Shabaab ka taliyaan kana tirsan dowlad goboleedka Galmudug. wahagaagi waxaad la socotaan daawadayaal wararka shabakada ee Shacabka TV meel kasta oo dunida ka joogtaan. wanaagsan wacan ayaan u leenahay muuqaalka leegno saara. maamulka Puntland ayaa diiday in Soomaaliya loo soo saaro kheyraadkeeda dabiiciga ah sida ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay xafiiska hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland. Puntland waxay tiri Puntland kama mid aha mana aqoonsana hay-adda shidaalka Soomaaliya Somali Petroleum. sidoo kale Puntland ma aqoonsana heshiiska iyo shaqada xaruntaasi ee magaceeda loo soo gaabiyo SBA ee dowladda federaalka Soomaaliya maadaama waqtiga kaga dhamaaday 8 February 2021. hadda oo ay xilgaarsiin u yihiin awood ma lahaan karto hay-addu inay bixiso heshiisyo caalami ah. Puntland waxay u soo jeedinaysaa shirkadaha daneeya Soomaaliya in ay ka qaataan shatiyada dowladda soo socota ee la dhisi doono oo ay hakiyaan heshiisyada Soomaaliya ee la galayaan ee dhanka kheyraadka ilaa iyo doorashooyinka laga gudbayo. waxaanu cadeynaynaa in dowladda federaalka Soomaaliya aysan xilligan awood u lahayn in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya, heshiis caalamina aysan gali karin. haddaba maamulka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa uu caqabad weyn ku ahaa in la soo saaro shidaalka Soomaaliya. inkastoo iminka ay ku doodayaan waqti xileedka dowladda ayaa dhamaaday ama hay-adaasi, haddana waxaa xusud mudan inta uusan dhammaan waqti xileedka dowladda federaalka Soomaaliya in maamulka Saciid Cabdullaahi Dani sidan oo kale caqabad ugu ahaa soo saaridda shidaalka Soomaaliya. oo waxaa la xasuustaa in ay dood ka keenayeen ma jiro heshiis rasmi ah oo ku saabsan kheyraadka Soomaaliya. sidaa daraadeed aqbali mayno waana ka soo horjeednaa in la soo saaro shidaalka Soomaaliya. haatanna cudurdaarkooda waxa ay ku saleynayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-addu waqtiga ayaa ka dhamaaday, suuragalna ma ahan in ay heshiis gasho dowladda federaalka ee Soomaaliya. caqabadaha maamulka Puntland uu ku yahay geedi socodka dowladnimada Soomaaliya iyo in loo soo saaro Soomaaliya shidaalkeeda dabiiciga waa mid ay ka wada dharagsan yihiin ummadda Soomaaliyeed, mana ahan tu hadda ay soo bilaabeen maamulkan fadhigiisa yahay Garowe. waxaase la isweydiinayaa sababaha siyaasiyiinta hogaamisa maamulka Puntland ku kalifaysa in ay diidaan shidaalka dabiiciga ah in loo soo saaro Soomaaliya. ma jirto wax war ah oo dhankeeda ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo arinkani ku saabsan. wahagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka shabakada ee Shacabka TV kasoo aragtay diibta qodobada warka iyo xaalka sidoo idinkula muuqdo. ragga sheegta midowga murashaxiinta ayaa mar kale dhaliil indhalaan ah u jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. qoraal ay soo saareen xubnaha sheeganaya midowga murashaxiinta ayay ku sheegeen in ay ku garab taagan yihiin waalidiinta wiilashooda ka tirsan ciidamada qalabka sida tababarkana ugu maqan dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Eritrea. qoraalka ay soo saareen xubnaha sheeganaya midowga murashaxiinta waxay ku doodayaan in sidoo kale ay ka soo horjeedaan murashaxnimada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa bay yiraahdeen laga cadeeyo wiilasha ku maqan dalka Eritrea. qoraalka jahawareerka ka muuqda ee ka soo baxay ragga sheeganaya midowga murashaxiinta ayaa imaanaya iyada oo doorashooyinka la guda galay isla markaana ay ogaadeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Master Ciiro inuu yahay shakhsi aad ugu dhow dhanka nabad iyo nolol. waxa ayna cabsi iyo walacba ka muujinayaan xubnaha sheeganaya midowga murashaxiinta guuldaradooda ku soo fooda leh dhowaanahan. dooda soo laabatay mucaaradka Soomaaliya ee ku aadan caruurta dibadda ku maqan ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ayaa u muuqata mashruuc ay kooxda Soomaaliya ee mucaaradka sheegta ugu talagaleen in ay markaasi ku weeraraan dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana bartilmaameedkooda inta badan u noqday dhowaanahan dhalinyarada dibadda ku maqan ee tababarka loo diray in markaasi ay ku qarataan magacna kaga raadiyaan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo isugu jira kuwa ay soo qaldeen, kuwa laaluush ay soo siiyeen oo mararka qaar u adeegsadaan isku soo baxyada fowdada ah. hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya waa ay ka soo horjeedaa qorshaha isku dayga ah ee la doonayo in lagu kala qaybiyo ciidanka Soomaaliyeed loogana been sheego. dhaqanka mucaaradka Soomaaliya oo aad looga deeriyo inta badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay noqday mid xirgaha sii goostay kadib markii kooxda waxa kaliya ay cudurdaar ka dhigtaan ay tahay ka been sheegidda dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka dibadiisa. geesta kale haddii aan u egno wararkii ugu dambeeyay xaalka doorashooyinka Soomaaliya, gudiyada doorashooyinka ayaa bilaabay inay u kala qulqulaan magaalooyinka caasimadaha u ah dowlad goboleedyada
iyada oo la gudagalayo soo xilida xubnaha aqalka sare iyo golaha shacabka. wararka uu helaya shacabka TV ayaa tilmaamaya in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku adkaystay gudagalka jadwalka doorashooyinka halka mucaaradka ay doonayeen in dib loo dhigo howlaha doorashooyinka Soomaaliya. warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka TV ayaa inta nooga dhan waad ku mahadsantiin daawashada wararkeena. qaybaha kale ee wararka ayaa noo madal ah. nabadgelyo.